بسم الله الرحمن الرحيم halka waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed waxa kale oo aan salaamayaa ummadda reer awdal qodobkan caawa ka hadlaya waxa weeye ergeyga xasan sheekh uu magacaabay siduu isagu sheegay Somaliland khaatuma Somaliland ma maanta awdal la Somaliland ma Soomaalidu dhan baa oginaanay hay marka cid aad loo magacaabay ergeygaasi waa isaaq marka hawlaha isaaq inuu ka soo shaqeeyo iyo hawlaha xamar ka dhaxeeyo inuu ka soo shaqeeyo weeye waxay u baahan tahay awdal in xurnimadeeda iyo dadnimadeeda xamar waa Soomaaliya ay mas'uuliyaddeeda qaadato waxay u baahan tahay khaatumana in dawladdeeda loo sameeyo madaafiicdan iyo hubkana laga durkiyo qodobka labaad waxa weeye nimanka ciyaal suuqee boori ma socda ee irir Somaliland nahay warana wiil Soomaali ma nihin anagu gada buursan nahay Samaroon Saciid baan nahay Soomaaliland dhan saasay noo taqaan wax Soomaali la yiraahdo iyo wax irir la yiraahdo mid ma nihin waxa isaaqiyahayna ma nihin anagu ninka Hargeysa ninka Lascaanood jooga noqon maayo ninka Lascaanood joogana ninka boori ma jooga noqon maayo Soomaalidu waa qabaayil sida yihiin in loola dhaqmo weyn dariiqda la wareegayeen in dadka lagala joogsado weyn maanta irir Soomaali looma baahna waxa loo baahan yahay ummadda buuxood la degan iyo Lascaanood in la badbaadiyo waxa loo baahan yahay ummadda awdal degan in la badbaadiyo reer awdal waxaan u sheegayaa war hadda waxaad joogtaan goortii aad sharafkiina iyo noloshiina iyo maxaan ku dhahaa dekadihiina iyo jiritaankiina aad runtii u dagaalami lahaydeen baad joogtaan waxa weeye si kale kuma dhicin karaysaan ciyaar kuma helaysaan weliba gaar ahaan dhalinyartaan u sheegayaa annaga gadhkii iyo gafuurkii baa na caddaaday berriba waanu tegi idinka waxaan idin leeyahay isku taaga inaad dhulkiina difaacdaan sharafkiina difaacdaan dhaqaalihiina difaacdaan ummadda Soomaaliyeed ka mid noqotaan ummadda Soomaaliyeed kuway wax ka go'aan aad ka mid noqotaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu